نسوق عسيري بشان آتك أخير كبلا وآتك أقيمها بلا قفت مسلم كان إن الله سبحانه وتعالى بشان أو وافجيه أو النرد أو كسو قارسيه والنعم الله سبحانه وتعالى أحد كستاء ونقمدنا وحل مبع هي إلهي سبحانه وتعالى إن أو كشكريه إني صدد أيا أنت أيس بشار بالله نورا أو بشان أنسوق قاري إني سأيا بشان أو مانتا مالك أبدا بيدي أن جورنه أن سوكر أيضنا الله يعوض بدايتي إن يلقى الماء هذه مركة هدي إلهي سبحانه وتعالى أو مالك أبدا بيدي أو كسوكر سيئي كل وافقيي إن أتكفى إيسته ولبنا مكان كان آت وخير كبضان إلهي سبحانه وتعالى هدنا قوة فديه إن آت كصومته أو مر والبرع وحوي مرأة كتابك إلهي سبحانه وتعالى آت أقرضه يمر وحوي مسيحه هي كتابك إلهي صلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكم مدعة لوضوء أخريه أيضنا وحوية والنعمة إلهي سبحانه وتعالى أحد كستوى مسلم مركة أو إلهي سوى في الدين إلهي سبحانه وتعالى كبريه ساعدها نقدم من أو معدودات كأه إلهي سبحانه وتعالى سن بالقليئة أصبوا عافمات قضاه نرشنا إن كجرته إلهي سبحانه وتعالى إنه قارسيه إلهي سبحانه وتعالى كبريه تذكر ربنا وحلقي هذا نعم الله إنه سندرين سنة لكن أحد في أنسوق قاري نفتي بيلسوق قاري أحد كاس أيامان تيقانا قيمها أيلاذا هاي بشان إلهي سبحانه وتعالى إن أوسو قارسيه وحنا لربي على مركة رمضان كلفتك هدوم دماغه إلهي سبحانه وتعالى بشان رمضان لعابد إلي أوضو حوي الصومتي أو معاصي فربضان إيا وحيابه فربضان آدو وتكتي إلهي سبحانه وتعالى إنه يمد النار أوليسنا باقئة كاغا نباها إن عبادتي أسي وضوء أمر والقب إلهي سبحانه وتعالى عبادتي إلهي سبحانه وتعالى أرجوك تيده أيسا كأكان وحوية بشي رمضان واعي دماتي عبادتي إيا وحيابي أن كتغى يهدنا وسوء لنا لا وحوى البوء كتكتي وإلهي سبحانه وتعالى دركس أهوتكتي حدر ليس خصوص الله وليهدتك ونكسنا وحيدين كده عملكو إلا أقبل وحيارها تصي وحا كمدا إن قداشيس إلهي سبحانه وتعالى أو كوافجيه أعمال ونكسن أو خير في إلهي سبحانه وتعالى أو كاغنغو من مستمرة أو حوية أنكل القئي بقي إلهي سبحانه وتعالى مروا البابا ومن حي أو باقية أو مروا البابا كاغباها أو كاغا إلهي سبحانه وتعالى مروا البابا أو كفر إن عبادتي سيئة جوبتينو مرة دي رمضان كأول الماضي وحوي موسم كان فربلا أيوة الصلاة صعدة أو لربائن أي كفى إليستان مثلا وحا هذا رمضان كهدول الماضي وحا نوصل الصعدة موسم كلا 6 من شوال أو
nabiguna calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye ummadiisa ugu dardaarmay inay soomaan oo lixdaas la raacsiiyo bishii ramadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa carabkiisana uu noogu jideeyey arrinka waa mawsim asaguna soo socda kadaalika mawsimkii xajka ayaa asaguna soo socda inkastoo ay hadda dhibaatooyin fara badan oo waxa weeye caqabada ay la yimideen laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inuu arrinkaas dadka muslimiinta oo waxa weeye uu ka faydo kadaalika bisha ramadaan hadday dhammaato waxaa nagu soo socota yowmul ciid maalinka ciidka oo dadka muslimiinta u ah maalin farax ah laakiin dad fara badan marka la yidhahdo waa yowmul farax si kale ayay u fahmaan oo qalad ah marka la leeyahay waa yowmul farax oo dadka muslimiinta ayaa waxa weeye maalinkaa farax ku noolaanaya waxaa loola jeeda xagga khayraad in qofta muslimka ah maalinkaas qofta ilaahay wax siiye dadka muslimiinta waa maalinka matalan waxa weeye dadka muslimiinta oo fuqarada dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wax siiyey inay ka farxiyaan in ay ka farxiyaan oo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey wax ka mid ah inay bixiyaan siiba dadka qaraabada ah oo waxa weeye asaga u dhow maxaa yeelay sadaqadu waa ka fadli badan tahay haddii la siiyo waxa weeye ninka qaraabada kula ah qayrkiis in la siiyaa waa ay ka fadli badan tahay marka qaraabadii sii dadka ku sii xiga ku dar dadka waxa weeye fuqarada wahaakada marka la leeyahay yowmul farax waa khayrkaas sidaalika zakaatul fitriga waxyaabaha waxa weeye loo diiday waxaa ka mid ah dadka muslimiinta in la farax geliyo oo maanta oo kale ama maqribka marka uu dhaco waxa weeye ilaa ciidda laga gaarayo in la bixiyo oo dadka muslimiinta looga farxiyo oo dadka lagu wasaco oo dadka fuqarada loo qaybiyo khayrkaas ayaa loola jeedaa laakiin dadka qaar si cagsi ay u fahmaan oo marka la leeyahay yowmul farax in lagu farxo almacaasi in lagu farxo shuruur in lagu farxo waxyaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan kaa ra'an lahayn hada maa yanbagii hada shayga la leeyahay yowmul farax baa markaas waxay noqonay yowmu suu ayay noqonay yowmul farax ma noqonayso haddaad ahalkeedii suuq ku sii daydo ayagoo waxa weeye garbasaara iyo waxa weeye qaawan gabdhahaadii dad dhar oo musiibo ah oo hadda badanaa la keeno aad u gelido ee suuq ku sii daydo ee dadka muslimiinta aad ku fidnaydo ee dadka muslimiinta aad ku dhibto kadaalika hoteelada iyo guryaha muusiga la saarto oo heesan la shito maahan yowmul farax maankaas yowmu suu ayuu noqonaya ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caasiyo ma ahan waa in maalinkaas faraxa lagu farxaa khayraadka acmaasha saalixa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaanayo bil aad iyo aad u khayr badan ayaa soo dhammaysatay fadli fara badan ayaa ku soo dhammayday cibaado mar aad salaatuleyl tukanaydo mar aad qur-aan akhrisanaydo mar aad ictikaaf ku jirto oo waqtiyadan dambe waxa weeye sunno aad iyo aad u faafayda oo aad iyo aad shay loogu farxo waayihii hore anu ma arki jirin waayahan dambe ictikaafku masaajidda iyo waxa weeye meelaha magaalada aad buu ugu farabatay waana nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala in looga shukriyo dadkii u sababka ahaa oo waxa weeye dadka muslimiinta arrinkaas ku faafiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ajra ka siiyo in masaajid saa loogu ictikaafo oo masaajidda ilaahay subxaanahu wa tacaala saas loo nuuriyaa waa khayr aad iyo aad u fara badan oo dadka muslimiinta ay joogteeyaan oo mar walbo la sii siyaadiyo masaajidda la camiro oo waxa weeye ramadaanka hadduu soo galo
مشاقل كذا أردن وحوي طبعا كتنبأ طبعا كهرباء هذا رمضان صوبر من الإسكالي هذا الأول كرتبة رمضان أنت وش الصوبر الطهر وحيالات مشغولة يوردن من الإسكالي المي هذا العيد صوبر الإسكالي دياره بيش أنت إنسان قلق إنسان بيان فترة اللفت جيدة بس كنت يرسك تعلم بحيل إن تكون صور لقطة إديار كوسي لقطة إدي فين كذي وحيابي مشغول كها ملا أصور لقطة أو بشهر رمضان الإله سبحانه وتعالى أقول طبعا كذا طبعا هو أول طبعا كذا لكن طبعا كذا إن أديار جنود اعتكاف تاس هذه إله سبحانه وتعالى كجارسية بش صوص عطا رمضان صار إلى مر والبضع الله قرشيه أو وحي كستوه مشاكله هي مشاكل إنه الناس كذبت أي شيء أو الله ما هكر أو الله احتياج هو ما كره إلى تقصي دياره أو طبعا كذنبه وحوي اعتكاف كاس سنة أو وحوي مالمان ذنبه هذه تلك المسلمين تاوليها مقالوين كان آدي انتشارية وحوية وواح آدي لو فرحه ضدك المركة ولما قلت انت مهل فقتمت هل كان مسائل كمسو آدي إلى اعتكافته أيضا نفتي قلوا وحوية أرن دارارة هي وحوية إلى مسو ديار قلولي أي الدليل تهي مركة ضدك اعتكافنا إلهي سبحانه وتعالى وحين قبرينا لما أرن وضبع sunnadaas ay faafiyeen oo dadka ay ku faafiyeen oo dad fara badan laga yaabo maanta waxa laga yaabaa nin adiga taajir ku ama kula shaqaysta ama suuq kula jooga markii uu maqlo fulaan hebel waxa weeye sanadka waa i'tikaafay waliba magaalada taxabaxay wuxuu aaday halkaas markaasoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartiis u go'ay waxa laga yaabaa inuu ku soo daydo waana sunna xasana النبي يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى أنك أتوقع اعتكافي أو سنة أو وضع أو حوالي أو مرة بالسمينة هذه الأجر بك على الصعود وحلقية على إلى حتى هذا العالم دي أو فعل كذا كليه أو كتيره مركا ضدك المسلمين تا ولا لها خيرك هي وناك أن كفى فينا sidoo kale maalinkaas ciida oo dad badan aysan fahansaneen dadka khayraadka hala tuso adigu dariska waxa tuska ahalkaada inuu xijaabto gabadhaada inaad asturto waxa weeye wiilkaada inaad dhar fiican oo wanaagsan oo aadaabtii muslimiinta islaamka leh aad u gelido isku day adoo xataa laga yaabo inaadan hadal dhihin oo qowl uusan kaa soo bixin ayaa laga yaabaa ficilka inaad ku daydo qofka inuu kugu daydo waxa ficil ayaa laga yaabaa inuu ka saameyn badan yahay oo ka ta'siir badan yahay hadal aad ku hadasho marka dadka waxa weeye muslimiinta khayrka loo horseedo oo dadka wanaagga hala tuso oo dadka khayrka loo soo jiido meeshii macaasida iyo dunuubta iyo waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo waxa weeye ka caroonayo in laga dheeraado oo laga fogaado oo bishaas khayrka oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan rajaynayno inuu si nabadgelyo annagoo nool saacadaha noo dhiman ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu noo dhammaystiro ay ka rajaynayno inta naga dhimanna oo waxa weeye ku sii xigtana aynu khayrkii sii wadno oo khayrkii sii wadno waxyaabaha khayraadka oo waxa weeye bishaan ku xigana ayadana aan ku dadaalno sida zakaatul fidriga oo kale axad kasta oo muslima oo awooda waxa weeye waa inuu bixiyaa oo uu ku dadaalaa oo waqtigeeda uu ku bixiyaa oo uusan yaraysan maxaa yeele waa ajir aad iyo aad u weyn badan oo khayr fara badan oo waxa weeye takmiil iyo khayraad u noqonaysa waxa weeye khayrkii iyo waxa weeye nicmadii aad ku soo jirtay kadaalika maalinkaas faraxa oo soo socda ayadana acmaasha wanaagsan aynu ku dadaalno dadka masaakiinta
aynu u kaalmayno dadka deriska ah aynu u kaalmayno dadka waxyaabaha yani ixtiyaajaadka qaba aynu u kaalmayno khayrka adugu khayr midka ugu yar ha yaraysan midka ugu yar kan ugu yar iyo kan dhexe iyo kan weyn intaad awoodaba ku dadaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid ilaahay ka ajir siinayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naarta inuu kaaga xijaabo laga yaabo walidaa uu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam naarta isaga xijaaba walow bishiqi tamr yani timar yani jeexeed wax weyn maaha haddana yani inaad bixido shay yar waxa weeye khayraad ayuu kuu noqonaa mana ogid in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga dhigo midii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naarta kaaga xijaabi lahaa marka waxaynu isu dardaarmaynaa walaalayaal inaynu khayrkaas aynu ku soo jirnay ilaahay subxaanahu wa tacaala mid mustamir nooga ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga dhigo oo khayrkaasna aynu mar walbaba aynu sii wadno haddaad khayr ku jirtay haddaad qur'aan akhris ku jirtay haddaad daalibu cilmi ahayd oo cilmiga mid dalbaaya aad ahayd ha joojini maxay waa khayr waa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado waxyaabaha ugu waaweynuu ka mid yahay in cilmiga sharciga ah kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad dalabtaa waa waafaji ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey haddaad ahayd ramadaan ka hor mid gaabiyey haddeer bacda ramadaan awoodda saar oo xoogga saar kadaalika haddii shay aad ka tagtay oo qabla ramadaan aad samayn jirtay ha u soo noqonin masalan sigaar baad cabi jirtay qabla ramadaan ramadaankii waa iska dayday ha u soo noqonin saa uga tag haddaad ahayd mid jaal cuna qabla ramadaan isaga fogow waxaad ahayd macaasi waxyaabaha qaaqaawan iyo waxyaabaha qurunka ah mid taleefanada fiirsada ayaad ahayd ramadaankii waa iska dayday ka fogaa asagana ha u soo noqonin khayr ku bedel aslan nafta haddaadan ku mashquulin waxyaaba khayraad ah iyo waxyaaba acmaal saalixa haddaadan ku mashquulin laazim waa inay ku mashquushaa waxyaabo kale oo aan khayraad ahayn laakiin mar kastaba waa inaad booskii shartu ay soo geli lahayd waa inaad acmaal saalixa gelidaan waxay rabta ha noqoto dalab cilmi ha noqoto sadaqa ha noqoto khayrka ood sheegta ha noqoto wanaagga oo dad ku faafida ha noqoto mar walbaba booskii waa in aad gelidaa khayraad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walbana aad ka baridaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ou ku waafajiyo marka khayrkaas ayaynu isu dardaarmaynaa hada wasala allah wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam